أنا هويدي أنا سويسرلاند كم كنت ربي سؤال على وتر العكن أنا هويدي مركز العكس ويربطها لكن هويدي دار العكسين المرة تاني دبعتها يا ستي هويدي ما وش عقنا سويس كلمة قاتل وحقنا شرب كلمة كلا قاتل أنا العك ما يستوي وما يستوي قولي لي ترى بس أنا شرب الكوس على أنا وحبي أودي هويدي وحي وتري أنت نوش على كلمة وحكوا بقى ولا أنا كويدي أنا حق العكتك كيري أنا وبيا سيلك بيا وقبضي ما ودين ولا لا حاجة فكرة ساتر بالقولة ولا نلاش ماشي قبل أبلا أطيق نحس هويدي يعني وحويني ما تويل كده وحويني نبكي سشيء أو يلكي وقلت أميلكي وأنا أتصل أما كمان إذا نبحث إلى كل جلاني هويدي بني آدم بابا قلت بكرة أوكي أنا جنبي بعد الشيء كسوقات هويدي أنا بعد حالتي كجلو إلى السوشيال ميديا يسافر ستحق مي ولا هويدي أطيق نحس يتعشى نو أبا حيود أنتي بيتري بين بيك شكل بيتري قد بيجو حرج لي وحيتري بيوسق الله يقول شو وحي ربتي هذا الشيء dadku way ogeen reer walba markii la dhisayna dad bay daris bay leeyihiin dadka dad baa yaqaana waxaan ma fahamtay oo kula jooga maanta waxa dhacayo dad baa arkay markii mustaqbalka la weynaadana bir ka sheekeyn doona diyaarada been sheega lacala markii weynaado iraado aniga weligay dib ma arkin qof baa dhahay deewaniga ka oo jirtay TikTok aniga ku aqaani aniga dariska kula qof baa jira deewal ku yaqaan sax aabahay oo dhintay qabriga la soo baxdo hooyaday haday fiican tahay oo aniga qaldanay xataa lacala soomeen inay tiraado waxaan dareemayaa inaan hooyalaanahay inay ku tiraado hooyada baade aniga qaladkayga waa qirtaa aniga hooyaday waa ogahay wax kasta haday igu samayso aniga waa hooyaday cidna ima bedelayso booskeedana qofna ma ii geli karo hooyo kalena ma lihi mana helayo aabahay sida u jeclahay baa u jeclahay laakiin xoogaa waxaan dareemayaa hooyaday inaan qalbiyan uma dareemayo inay hooyaday tahay dee wax aan ku dareemana ma arkin ilaahay baa runta jeclay maanta cunugayga fiiri haddaan ka dhaqaaqo oo noloshayda raacdo dee ma ii noqonaysa birito la qiil cunugayga gaal baa qaatay gaalka waa inaad dadaashid dee walaal waa inaad ka soo wax kaliya uga daba ordaya waa inaad sidaydoo kale aysan ku dhicin walaale maanta hadday dhibaato haysato aniga mil iyo qof u sheega dhibkayga